السلام عليكم على خطاب فيديو هوري أيا وحنا وجهضلني جواب عليت عقلي يسن فيديو قصدا داون وحنا كقول لنا هنا تسوداوتي هذا بكاس يعني قفكي سؤال خلدنك ويديا أو كلام سيدي وجواب يسيان كهضلني قفكي هذا يعني هذا الخلدنك وجودها جواب علين عقلي يسن سي عقلي اللي قفك سيدي وجواب يسن أوكي تاسو مل ما أنتي موضوع إنه حكوساب سني هاي فالعلنت عقلية سن ها تيورا هذا البيهد لكن تم وافل وحقبضها وحقبض عقلية سن محات سمين لهد سيدي سمين لهد هذا بقى شيكان كله وذاقيا شيكا داسنا سؤال أيا كجرتا سؤال شصدي أدك جواب تترونت وحتى قف عقلي بدل عادي ما أنا مسكح هذا يعني مسكح هذا وحي قارس بقلاتيش إلا بقل صديش عادي ما وحاتى قف عقلي بدل أياتي سو ذكران الله سبحانه وتعالى عقلها ugu ziyaadiyo sheekada sidan ay u dhacaysaa tuulo yar ayaa waxay ku tiirsaneed yani noloshoodu waxay ku tiirsaneed beeraha yani inay beero fashaan iyo xoolo dhaqasho waa tuulo yar noloshoodu waxay ku tiirsan tahay beeraha iyo xoolaha yani in xoolo dhaqdaan ay ku tiirsan tahay tuuladaas dadka ku nool waxaa kamid ahaa gabar aad iyo aad u qurxoon gabadhaas wiil kasta oo tuulada jooga uu ku haminay yani gabadhu waxay ahayd gabar aad iyo aad u qurxoon waxaad is leedahay muxuurulcayn adduunka la keena caadi ma ahayn kadib maalmaha ka mid ah nin gaangister ah luuqada ciyaalka xaafadda laadar ah nin laadar ah ayaa tuulada yimid kadibna wuxuu arkay gabadhan aan la fiirin karin oo quruxda badan aabaheed ayuu tagay waa uuna ka doontay laakiin gabadhi ayaa diiday oo wariyaha adiga noocaana kuma rabay tiri ninkii waa uu xanaaqay gabadha aabaheed buu u tagay wuxuu ku dhahay gabadhaada haddii aadan isin oo aadan ii guurin xoolaha aada haysatidna waan kaa dhici adigana jeelkan kugu tuuriya xabsiaan u gelinaya aabii waa u walwalay waxa uu sameeyay asagoo garan la ayaa ninkii gaangister ka hadlay wuxuu dhahay xal ayaan ku hayaa buu dhahay wuxuu dhahay xal aniga ku haya waxaanu sameynaynaa qorituur gabadhaada waa idin guurinaysa haddii aan qorituur ku guuleysto haddii aan ku guuleysana anoo wax dhibi ku gaarsiin ayaan baxayaa haddaba qorituurka see u dhacaya wuxuu dhahay weel maxay hadda meelahan weel ima yaale baaquli ayaan waxaan ku ridiyaa buu dhahay laba dhagax cad iyo dhagax madow gabadhaadana labadaas dhagax mid ka mid a ayay dooranaysaa iyadoona fiirin haddaba dhagaxa cad haddii qaadato waan guursanayaa balse dhagax madow haddii qaadato anoona wax dhiba ku geysan ayaan iska tegayaa aabii waa ku qasban yahay inuu yani uu haye dhaho because yani doorasho kale ma haysto wax kaloo doorto ma haysto haye ayuu dhahay gabadhiisa ayuun u sheegay arrintii kadib waxaa la gaaray waqtiga qorituurka dadkii tuulada oo dhan ayaa isku soo baxay meesha ayaa la wada yimaaday kadib ninkii gaangisterka ahaa iyadoona dadku ku baraarugsan oo dadku u jeedin ayuu laba dhagax oo cad uu meesha ku riday waxa laga rabay dhagax cad iyo dhagax madow ayaa laga rabay because dhagaxa cad asaga gabadha guursanaya dhagaxa madowna gabadha ma guursanaya weeye hadday doorato marka laba dhagax oo cad ayuu ku riday meesha yani midkii rabto ha qaadato aniga ayaa iskala weeye sheekada balse gabadha way ku baraarugtay in laba dhagax oo cad uu ninka meesha ku riday in gaangisterka laba dhagax oo cad meesha uu ku riday haddaba su-aasha waata gabadhaas booskeeda haddaa adigu aada ku jiri lahayd maxaad sameyn lahayd ninku waa gaangister haddii aada dhahdid dadka u sheega waxaan dhahayaa laba dhagax oo cad baa meesha ku jira taas waa jawaab khaldan maxaa yeelay ninka gaangisterka wuu xanaaqiyaa gabadha aabaheed ayuuna dhib gaarsiinayaa haddii aad dhahdid gabadha yani si ay aabaheed u badbaadiso labada dhagax oo cad mid kamid iska dooran kadibna ninka iska raacaysa taasna waa jawaab khaldano gabadha mustaqbalkeedii ayaad ku ciyaaraysaa okay haddaba gabadhaas booskeeda adiga haddaad ku jirtid maxaad sameyn lahayd falcelin caqliyeysan ka bixi maxaad sameyn lahayd jawaabtaada qeybta commentiga nagula wadaag waad ku mahadsan tahay sidoo kalena ha hilmaamin youtube-keenan kale oo cali khadaab insha allah inaad kusoo birtid biidn illah asagana fideyaal kale ayaad ka helisaa oo muhiim ah asalaamu calaykum jawaabtaada sugaya فكر